questions in direct speech. Markaan aan fiirino direct speechka asoo ah su'aal ama asoo ah su'aalooyin. Examples tusaale ama tusaalooyin. Number one, he said to me wuxuu igu dhahay, what are you doing? Adiga maxaa samaynaysaa? Waa araga waa su'aal oo direct ah. He asked me wuxuu i weydiiyey what I was doing, waxaan samaynayay. Hore oo soo sheeganay markay tahay su'aal ama questions, asked ayaa la qaadanaya. Number two, where do you live? Halkii baad ku nooshahay? Asked the girl, gabadhaa su'aashay. Where do you live? Halkii baad ku nooshahay? Asked the girl, gabadha ayaa weydiisay. The girl, gabadha, inquired waxay weydiisay where I live it, halka aan ku noolaa. Halka aan ku noolaa. Number three, the policeman said to us, ninkii askari ah wuxuu nagu dhahay, where are you going? Halkii baad u socotiin? The policeman, ninkii booliiska ahaa, said to us wuxuu nagu dhahay, where are you going? Halkii baad u socotiin? The policeman, ninkii booliiska ahaa, inquired wuxuu weydiiyey where we were going, halkaan u soconay ayuuna weydiiyey. The policeman, ninkii booliiska ahaa, inquired wuxuuna weydiiyey where we were going, halkaan u soconay. Waxaan jecelnahay marka meeshaasaan ugu soo tegaynaa direct indirect ama report speechka. Direct iyo report speechka oo aan ugu talagalay grammarka dhaxalgalka ah ee ardayda. Commands and requests. Commands waxaa leedahay amarada, and iyo requests codsiyada asoo ah direct aan fiirin direct speech ah. Examples tusaalooyin. Number one wuxuu yidhi, Asha said to Ahmed, Asha ay Ahmed wuxuu ku dhahday, go away, tag. Asha ordered Ahmed, Asha waxay amartay Ahmed to go away, inuu iska baxo. Waa kaas markii laga dhigayo commands markuu yahay direct speech oo loo bedelayo report speechka waxaa la siiyaa ordered. Asha ordered Ahmed waxay amartay to go away, inuu baxo. Ahmed ayay fartay. Number two, he shouted, wuu qayliyey, let me go, idaaya ama iga taga, idaaya. He shouted wuxuu ku qayliyey, let me go, iga taga, idaaya. He shouted wuu qayliyey to them, ayuu ku qayliyey to let him go, inay iska daayaan. Number three, he said wuxuu ku dhahay, waa macalinkii, be quiet, macalinkaa dhahaya, aamusa, and listen to my words, dhegeysta kelmadahayga. He urged them, wuxuu ku booriyey iyaga, to be quiet, inay aamusnaadaan, inay deganaadaan, and listen, ay dhegeystaan, to his words, kelmadihiisa inay dhegeystaan. He urged them, wuxuu ku booriyey to be quiet, inay aamusaan, and listen, ay dhegeystaan, to his words, kelmadihiisa. Number four, he said to him, wuxuu ku dhahay, please fadlan, wait here, halkan igu sug, till I return, intaa ka soo laabanayo, halkan igu sug. He said to him, wuxuu ugu dhahay, please fadlan, wait here, halkan igu sug, till I return, intaan ka soo laabanayo. He requested him, wuxuu ka codsaday, to wait there, halkaas inuu ku sugo, till intii he returned uu ka soo noqonayo.